بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة رمضان iyo warkeedu kitaabkiiyo sunnadana waa ku badan yahay duruusta iyo waxa laga faa'iidayo casrigan dambena dee cilmigaaba u janjeedha xalay bise habeen hore waxaan dhegaysanayey nobel pricekii 2016kii nin jabani soo qaatay oo soonka ku qaatay nobel price aclى الجائزة في العالم ay bixiyaan sayniska oo nobel priceka lagu siiyey markuu jidhku soomo maxaa dhaca ilaa xad uu leeyahay qofkii raba inuu caafimaadkiisa si caadiya u fiicnaado wuxuu u baahan yahay toddobaadkii inuu 2 casho soomo dee walba inagu sunnadaynu ku haynay toddobaadkii in 2 casho la soomo isniin iyo khamiis أحد العلماء ka warramaya wuxuu lahaa waxaan eegay buu yihi 3 sannadood ee ugu dambeeyey maraakista caalamiga buxuusta laga qoray soomka 900 oo baxfiyo cilmiya laga qoray 3 sannadood ee ugu dambeeyey maraakis alcilm alcaalamiya waxyaabaha ku saabsan soomka 900 oo baxfi ayaa laga qoray idan maanta kuma talagelin ramadaan taas iyo fawaa'ideeda iyo waxaynan ka warramo waxaan iskaga talagalay waraa ogsoonaydeen inaan idinku adkeeyo alcashr alawaakhir 10ka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu qaban jiray iyo see loo cibaadaystaa waa war culammadu in badan ay idinkala hadleen laakiin min baabi ta'kiid iyo in la isugu celceliyo si ay qalbiga u degto ama ay camal u noqoto ama ay dhaqankeenna uga muuqato ayuun baan ku talagalay inaan idin idhaahdo intii culimmadu sheegaysa inaan idinku sii adkeeyo 10kan cashee ramadaanta ugu dambeeya waxaynu ognahay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay 10ka habeene ugu dambeeyaana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin yani culimmadu waxay yidhaahdaan sanadkao dhan marka la ysku daro haddii 10 la qiimeeyo maalmaha markay tahay bay culimmadu yidhaahdaan 10ka maalmood ee dilxijo baa ugu fadli badan habeenada markay tahayna bay yidhaahdaan 10ka habeen ee ramadaan baa ugu fadli badan marka 10kan cashe ee ramadaan ugu dambeeya habeenadeeda ayaa waxay yihiin 10ka habeen ee sanadkao dhan marka la ysku daro ugu fadli badan haddana waxaa ku sii jira habeenka dee sanadkao dhan marka la ysku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo 10kii habeen ee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadkao dhan ugu fadli badnaa oo 10kan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkao dhan yani 10kani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadkao dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka soo warinayo umu lmu'miniin caaisha radi allahu canha waxay leedahay kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yجtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yجtahidu fi gayri wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam 10kaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan idan 10kan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso 10kaa habeen cibaadadooda weliba
caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiidka saxiixeynku warinayaan kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam إida dakhala alcashru shadda mi'zarah وأحyaa leylah وأyqada أhlah. imaamu muslimna riwaayaddiisu waxay siyaadinaysaa wajadda washadda mi'zarah. caaisha waxay leedahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam tobankan habeendan hadday usoo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay. haddaba isagoo nebi maxamed marka horeba cibaado badnaa calayhi الsalaatu wasalaam oo habeenadii siduu u tukanayo gumadu berari jirtay oo ay caaisha ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii hore iyo kii dambeba waa la dhaafaye maad naftaada sidan ka daysid maad nasatid oo kale ow lahaa haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa iyadoo dhaqankiisu uu kaa ahaa ayaa haddana tobankan markay soo gaadho arrinku wuu ka gedisanaa habeenkiisa wuu noolayn jiray baa la yidhi. caaisha ayaa waxay leedahay xadiidka nasaa-i warinayo laa aclamu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi leyla walaa qaama laylaة xataa asbax walaa saama shahra ramadaana kaamila walaa saama shahra kaamila gayra ramadaan. ma ogi bay iyadu tidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo habeen siduu u waday ku soo wada jeeday cibaado ama qur-aanka habeen qudha dhameeyey ama bil aan bisha ramadaan ahayn wada soomay garan maayo bay leedahay. marka axya leyla kula maxaa looga jeedaa? riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen inu habeenkao dhan noolayn jiray laakiin culimmadu waxay leeyihiin gaalibu leyl habeenka inta ugu badan leh ayuu habeenada noolayn jiray. horta in habeenkii la cibaadaystaa iyadu de waa calaamadaha nebiyada iyo dadka saalixiinta ah. ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamaya tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca wamima razaqnaahum yunfiquun. dhinacooda dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy iyagoo rabbigood baryaya u cibaadaysanaya oo cadaabkiisana ka cabsanaya iyo ciqaabtiisa naxariistiisa iyo jannadiisana hunguri ka hayo ayaa dhinacooda dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy. waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dadka saalixiinta ee jannada gala ina almuttaqiina fi jannaati wacuyuun. qoladaa maxuu yahay calaamaadka lagu yaqaanaa? inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin baa la yidhi. waxay ahaan jireen calaamaadka lagu yaqaanay waa kan adduunka markay joogeen dad ixsaan sameeya bay ahaayeen. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen wabilasxaari hum yastakfiruun. waqti suxuurka marka la gaadhana istikfaarta bay bilaabi jireen. wa fii amwaalihim xaqu liلsaa'ili wاlmaxruum. hantidoodana xuquuq bay ku lahaayeen go-anba kuwa wax weydiista iyo kuwa wax mahaysatada ahiba. idan asliyan ayuu habeenkii in la tukadaa waa dhaqanka nebiyada, waa dhaqanka saalixiinta, waa dhaqankii saxaabadii. ilaahay saxaabada markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay? muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaaء calى اlkufaari ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahar الsujuud. salaad badni baa ilaahay ku ammaanay. salaad badni ayaa lagu ammaanay iyo muslimiinta inay u naxariistaan gaalkana iska dhiciyaan. waa calaamadda lagu yaqaano dadka raba maqaami اlambiyaai waالshuhadaaءi waالsaalixiin inay gaadhaan. wiilkii yaraa ee nebiga calayhi الsalaatu wasalaam u shaqeeyey ee uu nebigu is yidhi u abaalgud. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam cid kastoo wax u qabatay wuu u abaalgudi jiray, abaal laawo ma ahayn.
dabeetana wiilkiibuu u yeedho wuxuu ku yidhi war wax weydiiso salni wax weydiiso aan wax ku siiyey wiilkii yaraa wuu soo fekeray dadkan hamadoodu siday u sarraysay bay tilmaamaysaa iyo waxay raadcaynayaan wuxuu ahaa waa nin dhallinyaro ah oo nebi maxamed u adeegaya laakiin hamigiisu adduunkan wuu ka weyn yahay adduunkan dhammaantii kuma filla hamigiisu waxa weeyaan janno jannadana xagga hoose ma rabo wuxuu rabaa janno meelo sare nebiga meeshuu galaya iyo agagaarkeeda inuu joogo dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula ahdo adduunka waa kana waa kugula saaxiib waa kula joogaayo aakhirana jannada macaaga inaan noqdaa baan doonayaa ninka hungurigiisu halkaa joogo camalka la yidhi waad ku gaadhaysaa waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad iigu gargaartaa haddaba haddaad kaa raadcaynayso adiguna sujuudda badi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuuddaadu salaadkaagu ha bato idan axya leyla marka la yidhaahdo fii ramadaan hadduu markii horeba nebiga sifadiisu caynkan ahayd ou salaada saa u tukan jiray ramadaan markay timaaddo ee weliba lay sii timaaddo tobanka dambe waxaa la yidhi tobanka kan axya leyla habeenkii buu noolayn jiray qaabku u noolayn jiray isweydiinle marka la yidhaahdo awalba waa noolayn jiraye noolayntan gaarkee tobankan lasii sheegaya sifadeedu qaabkuu noqonaya markaa أولا في الشريعة صلاة الليل إن حق هوري لقى تكذا واي بنانتي وقفوا إنتان مستحب إنه يسكت كذا مع التركيز وحبنان صاغدا دحين وسوق عود كذا وحبنان صلاة الصبح كهر إنه كعود كذا إذن أولك هي وسطك هي آخرك أنتم بوا بنانتي وحان الله إذا النبي عليه الصلاة والسلام هدات راضع عيسها بينكي wakti kasta wuxuu baad arkay isagoo taagan haddaad doontana wakti kasta isagoo hurdaad arkay yacni waa isbedbedel intaba uu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay idhaahdaan qofka muqiimka ah ee mustatiica ah qofka degan ee awooda waxaa u fadli badan xagga dambe ayaa u fadli badan wixii nusleylka ka dambeeya ayaa u fadli badan bay yidhahdaan واتي عمر لقى شيء أثرك والتي ينامون عنها أفضل دي إلهينا قرآنك والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون بإلهي المامية نبي عليه الصلاة والسلام سدو أتكنجري عائشة ساحدتي أي نصوص شجناي كتل مامتي وحيلا ذهي أنا ومانا أرق رمضان يغير كيتونا السقوم محي كوبي يتبرق عدود كبديي laakiin koob iyo tobanka ragcadood ee nebigu cayn ka yahaye innaga haddaad tidhaahdo qof koob iyo toban ragcadood baa la tukadaa dee 10 daqiiqo kaga soo baxaya soo maaha qoladeenna fogaysaa ee tidhaahda waynu tahajudaynaa waa dheeraynaynaa dee hal jis umaynu akrinaa soo maaha caaisha waxay leedahay abi salama ibnu cabdiraxmaan ayaa wuxuu weydiiyey caaisha kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalama fii ramadaan nebiga salaadiisu ramadaantii siday ahaan jirtay caaisha waxay ku tidhi ma kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalama liyaziida fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa 11 ragca ramadaan iyo kayrkii toona 11 kamuu badin jirin aynu sheegi riwaayaadka loo sheegaya 13 iyo wax la mid ah 11 kamay badin jirin bay xadiidkan caaisha ku tilmaamtay laakiin siduu tukan jiray isweydiinta leh waxay caaisha leedahay yusalli 4 laa tas'al can xusnihina wa tuulihina 4 buu tukan jiray iyaga hay weydiinin bay tidhi quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin waxaa la yidhaha nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxay caaisha leedahay xadiidka horta dhammeeyo uma yusalli 4 buu haddana tukan jiray laa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma yusalli 3 bay tidhi dabeetana 3 buu tukan jiray xadiidku intaa uu ka rooyey mukhtasar shamaa'il
mukhtasir shamaa'il buu imaam ilalbani ku saxiixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bal qirada waxaa kaaga filan xadiidkii xudayfe iyo ibnu mascuud iyo axaadiista ay warinayeen habeen inuu salaad isu taagay dabeetana ay ku xidheen saxaabi baa ku xidhay dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi de kolley 100 meelahaas markuu gaadho ayuu dhammayn doonaa albaqraba waa dhameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam albaqri waa 2 jis iyo dheeraad 286 aayadood waa dhameeyey kadib aan sidhi buu yidhi hadduu rukuuci markaasuu bilaabay buu yidhi suuratu nisa haddana markaasuu dhameeyey markaasuu dib u soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana aali cimraan bilaabay markaasuu dhameeyey waa ragcad maaha 11 kama warramayno waa ragcad buu akhriyayaa maxay 5 jis iyo dheeraad caaisha waxay leedahay kaana yasjudu sajda qadra maa yaqra' axadukum 50 aaya sujuudda nebi maxamed waxay ahaan jirtay bay leedahay inta midkiin 50 aayadood ka akhrinayo hadda jiskuba waa ilaa 140 aayadood meelaha maalan jiska albaqri 150 iyo wax ka yar that means waxa weeyaan thuluth jus inta laga akhrinayo 50 aayadood inta la akhriyi karo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sujuudiisu ay ahayd sideedaba salafu saalix saxaabadii iyo nebiga iyo dadka wanaagsanaa wardigooda iyo qur-aankooda iyo salaad akhriskooda way isku dari jireen in badan oo ka midi wax lagu wardiyo maxaa u badan oo u fiican subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar soo maaha salaadana acmaasha la qabto saddexda tan iyo qur-aan baa u fiican wax lagu wardiyo socaynkaa maaha salaaduna intaasunbay ka koobantay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta o dhan waad wadaysaa soo maaha dee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaalla maxaad samaysaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim samic allahu liman xamid intaasumaad wadaa tasbiixaat iyo taxmiid iyo takbiir ayaad salaada wadaa iyo qur-aan la akhriyo waa wardigu ugu fiicnaa oo ficil salaadeedna ah wardigaasoo marna lala rukuucayo marna lala sujuudayo weeyaan salaadu sida awgeed nebiga calayhi salaatu wasalaam 7 wuu tukaday oo 9 buu tukaday oo 11 buu tukaday oo 13 buu tukaday oo ka yar buu tukaday laakiin lama soo naqlin 13 wax ka badan oo isagu tukaday laakiin dee salaadihiisu kuwaasay hayeen haddaba culimmadu waxay leeyihiin sheekh mustafa alcadawi wuxuu soo naqlinaya waxay culimmadu yidhaahdeen buu yidhi sifadu hadday nuqsaan inaga gashay cadadka waa lagu kabi karaa u fiirso ereygaa haddii adigu 11kaagu aanay la mid ahayn ama la nooc noqon haddaad horta kuwii nebiga u ekaysiin karto cadadan wa sifatan iyada fadli badan cadadan wa sifatan tira ahaan iyo sifa ahaanba haddaad sunnadii nebi maxamed raacda calayhi salaatu wasalaam iyada fadli badan culammadu waxay idhaahdeen haddaad sifadu kaa gaabato oo aad intii sujuudnaan kari weydo ama qur-aanka intii akhriyi kari weydo waxaa lagu kabi karaa bay idhahdeen ragcadahoo la badiyo oo xaggay ka keeneen waxay yidhaahdeen cibradu waa zamanka aada cibaadaysanaysee cadadka ragcadda maaha bay dhaheen u fiirso ereyga falcibratu bizamani اlqiyaam walaysat bicadadi rakcaat bay idhahdaan meesha danta la leeyahay waxa weeyaan imisaad ilaahay hortaagnayd ee maaha imise ragcadood baa tukatay waxaa dhici karta qof 7 ragcadood ilaahay hortaagnaa inuu ka badan yahay 20kaa tukatayba waxaa dhici kara qof 9 ragcadood tukaday inuu ka badan yahay intuu cibaadaysanayay maxay intaad adigu tukatayba cibradu bay leeyihin waa zamanka oo maxaa daliila waxay idhahdeen waxyaabaha ku tusiya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay qum اleyla ya ayuha اlmuzamilu qum اleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid calayhi waratil اlqur'aana tartiila waxaa lagu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam habeenkii istaag in yar mooyaane nuskii istaag ama wax yar ka yaree ama wax yar ku dar waratil اlqur'aana tartiila
aayadda dambe ee nasakhday aayaddan say culimmadu sheegayana maxay sheegaysa ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay leyli wanisfa wa ثuluث idan cibradu waxay leeyihin waa zamanka waxaa kaloo taa caddaynaya bay leeyihin xadiidkii sheegayey saxiixeynka ku yaalay ee sheegayey maxay salaada ilaahay ugu jeceliyay salaatuleilka awalan marka faralka laga yimaado dee salaad la tukado salaatuleilka u fadli badan faralka marka laga yimaado oo waa kii nebigu laha alayh الsalaatu wasalaam bacda almaktuuba waxaa ugu fadli badan le maxay salaatuleilka salaatuleyladuna way kala fadli badantee keeba xagga alle loogu jeceliyo tii nebi daa-uud buu nebigu yidhi calayh الsalaatu wasalaam wa axabu الsalaati ilى اllahi salaatu daawuuda calayhi الsalaam salaad la tukadana waxaa loogu jeceliyay baa la yidhi tii nebi daa-uud uu tukan jiray nebi daa-uud muxuu tukan jiray kaana yanaamu nisfa leyl habeenka inta hore wa iska seexan jiray waataynu le xagga dambe la tukadaabaa fadli badan laakiin waa bannaantay xagga horena in la tukado saan aynu taraawiixda u tukanoo kale taraawiixdu waa salaatuleyl la qadimay u kaana yanaamu nisfa leyl habeenkii nus buu seexan jiray wayaquumu ثuluثa saddex meelood oo meella wuu taagnaan jiro wuu tukan jiray wayanaamu sudusa sudusna wuu sudusku waa lix yacni lix meelood haddaad u qaybiso habeenka lix meelood haddaad u qaybiso saddexda meelood oo ugu horeeya wuu seexan jiray saddexda meelood ugu horeeya waa nus markaa labada meeloodee ku xigana wuu taagnaan jiray halka meele ugu dambeeyana wuu hurdi jiray tusaale haddaad tidhahda habeenku maalan haddaynu idhahna habeenku waa 9 saacadood 9kaa saacadood 4 iyo badhka hore wuu hurdayaa kow waa nuskii ثuluث buu haddana soo jeedaya 9 saacadood ثuluثkooda waa maxay waa 3 saacadood 3 saacadood buu haddana tukanayay kadib buu haddana suduska dambe waa maxay waa saacad iyo badh marka 4 saacadood iyo badhoo horuu seexday 3 saacadood oo dambuu taagnaa saacad iyo badh dambuu seexday habeenkiisii 6 saacadoodna wuu hurday 3na wuu taagnaa weeyaan habeenkiisii 9 saacadood ahaa 6na wuu hurday 3na wuu taagnaa idan culimmadu waxay leeyihiin xadiidkan iyo aayaddan qur-aana markaynu eegno waxaynu ka fahmaynaa cibrada meesha lagu xisaabtamaya inuu zamanka iyo inaan ragcado ahayn dhalinyarada dambe fuqahada qaarkood iyagoo raacaya waxay 11 un haladkoodo laakiin dee 11 bidhbidha haddaad tukato ma aha 11kii wasniga samaynayay 11kaagu 3 saacadood ama 2 saacadood may qaataan ilaahay qur-aanka markuu tilmaamay kuwa ilaahay isu taaga waxa la yidhaha aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima aanaa baa lagu tilmaamay yacni saacaat alleyl habeenkii saacadiisa taagan ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولذلك بوحو كسر نقلنا إياه الشيخ مصطفى العدوي ابن تيمية أما ابن الحجر العسقلاني شيخ الشافعية ده أن النقص في صفة القراءة يزداد في عدد الركعات بإله قراءة هذا كوبناته حافظ متيد أما waad xanuunsanaysaayoo in badan ma taagnaan kartid ama waad daciif baatay oo waad gabowday oo in badan ma taagnaan kartid jirto dadkii dhallinyaronimadoodii ku traingareeyee taagnaan jiray iyagoo gaboobay ba taagnaadaan culimada muslimiinta qaar baad arkaysaa 9 jiraa aan arkayay ramadaanta mid tukinaya taraawiixda 104 jiray ul yar buu ku taagay ul buu haystaa waxaa la ii sheegay axad alculamaa mauritania ma kici karo salaada marka la tukanaya baa la yidhi laba inana u dhalaa garbaa qabta dabeetana waa la taagaa waa la sii daayaa markaa salaada intuu tukanayo o dhan caadu u wadaa markay salaadu dhammaataabuu isku dhacaya haddana yacni ilaahay baa uu xoojiyey inaanu salaaddii uu sidii u taagnaan jiray inaanu ka daciifin xataa isagoo gaboobay oo kici kari loo la kicinayo hadhow inta salaadda uu ku jiro isagaa kackacya cidina kicin mayso markay dhammaatana wuu isku dumayaa baa la yidhi idan haddii si uun ay dhacdo tamartaadu inay keensan weydo inay qiraa'aadkaagu dheeraadaan waxay culimmada tani leeyihiin ragcadahaad badsan kartaa haba gaagaabnaata ragcaddaadii 10 daqiiqaba ha qaadatee ragcadaha maxay badi bay leeyihin
ibn cabdilbar alcallaama ibn cabdilbarina waxaabuu ka soo naqlinayaa ijmac sheegaya masaladatan ajmaca almuslimuuna calى anahu laa xadda liakari rakcaati fi qiyaami اleyl buu ka soo naqlinaya wallahu aclam ijmacaasiisu waa saxay soo duduub nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo salaadihiisuba dheeraayeen marka horeba salaadihiisu dheeraayeen kuwa sunayaasha uu tukanayo aynu ka warramaynaa waayo sunnada tan qofku waa amiirun calaa nafsi cidna kuma xidhna cidna qasab ma aha dadkuna waa iskaga tegi karaan qasab ma aha laakiin isaga siisa u tukanayay idan nabigu calayh الsalaatu wasalaam waxa ugu badanee laga sheegay inuu tukaday waa 13 sida caaisha iyo ibnu cabaas iyo zayd ibnu khalid aljuhani ma xaasiluhu waxuu sheegay marka la isku dardaro say sheegayaan 13 baa laga sheegaa culamadu waxay idhahdaan 11 bay caaisha xaggaa ku sheegtay isagoo ka badiyey maana rag 13na waa la sheegay waxay tilmaamaysaa bay leeyihin in laga badiyey waxaa kaloo ay sheegayaan culamadu axaadiistii sheegaysay salaatu leyli mathna mathna nebigu markuu yihi maftuux buu ka dhigay salaada habeenkii waa laba baa loo tukanaya ee haddaad waa beriga ka cabsato inuu ku soo gaadho un saad u wado labadaada faidaa khashita الصubx faawtir biwaaxida buu nebigu yihi hal xabo kuwii tirso wuxuu nebigu leeyay layusalli axadukum nashaata faidaa fatara falyaqcud midkiin ha tukado inta uu nashiidka yahay intuu firfircoon yahay markaad daasho iska fadhiisaa lagu yihi ninkii doonay maqaamka ambiyada inuu ka daba tago acinnii calىa nafsika bikahrati sujuud buu nebigu ku yihi sujuud badni iigu kaalmee man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla ninka imaamka la tukadaa la yidhi ilaa iyo intuu ka baxayo ka dhammaynayo dadka barh baa imaamka intay bartanka kaga tagaan yidhaha hadhow baan tukanaya waxaa kaaga fadli badan adigoo la dhammaystaa hadhow haddaad doonayso waxaad doonayso tuko laakiin imaamka ha ka tegin la dhammayso oo hadduu witirsado maxaad yeelaysaa laa ba's la witirso hadhowna salaad bilaa witr un tuko idan ayuha alaxiba culamada badh waa sugayaan sanadada axaadiista sheegaya ubay ibnu kacab inuu 11 tukiyey iyo inuu 23 tukiyeyba waa sugayaan inkastoo sheekh alalbani isagu 23 ka daciifinayo oo 11 qura asixinayo laakiin culamo kale muxadisiina asixinaysa oo leh labaduba waa haabit idan waxaynu leenahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aslanba habeenkiisa si fiican buu u tukan jiray laakiin waxaa la yidhi ramadaanka siiba 10ka dambe waa nooleyn jiray baa la yidhi wax lagu nooleeyo waxa ugu fiican salaada waayo salaadu hadday kuwii nebiga u ekaato waxay kulansanaysaa qur-aan akhriskii tasbiixdii taxmiiddii tahliishii wixii loo baahnaayo wardi oo dhan baa ku jira iyada wixii loo baahnaayo o dhan oo wardiya ayaa iyada ku jira wax lagu nooleeyo markaa salaatuleilkaa u fiican haddaad isku kalsoonayn oo isleedahay war xagga dambe waa kaa tegi doontaa xagga hore ka noole haddaad raganimadaa isku og tahay oo intaad maalintii u seexato aad is leedahay habeenkii waad kici karaysaa habeenkii noole habeenkii intaad tukan kartaba tuko ha isku yaray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii wuxuu kaloo samayn jiray salaatuleilkaa reeraana wuu kicin jiray alaa taquumani fatusalliyaan buu ku lahaa cali iyo faatima waa tan caaisha ku tilmaamaysaa wayuuqidu ahlah ahalkiisana waa toosin jiray waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamaya ahalkaaga salaada far oo ku sabra dheh idan ayuha alaxiba habeen buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam soo toosay bay umu salama leedahay isagoo argagaxsan oo leh subxaana allahi maada unzila alleylata min alkhazaa'in wamaada unzila min alfitan subxaana allahi buu nebigu leeyahy caawa maxaa khasnadaha ilaahay nimcooyin laga soo dejiyey maxaa fitan soo degay waryaa toosiye buu nebigu yihi guryaha kan kuwa ku jira waa haweenkiisi buu tilmaamaya guryihii
masaajidka ku xeeraaya sawaaxib alxujaraat yaa toosiyey buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam likay yusalliyanna si ay u tukadaan waayo ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira buu nebigu yihi la arkee mid dunida maryo huwan oo asturan oo aakhiro qaawan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunka qof fiican loo yaqaano masaatan loo yaqaano laakiin aakhiro marka la tago aan waxba meel oonin idan waxay leenahay wakhtiyada kaleba nebigu wuu toosin jiray haweenkiisa inay salaad tukadaan laakiin tobankan habeen si gaaruu u toosin jiray weeyaan waxay caaisha xadiidkaa ku tilmaamaysay washadda almi'zar shadda mi'zara maxaa looga jeedaa guntigu adkaysan jiray laba macnoba culammadu way saaraan inay leeyihiin waa kinaaya can الاsticdaadi lilcibaadaةi واlijtihaadi fiiha ziyaadaة calى اlmuctaad wamacnahu الtashmiir fi اlcibaadaat yani in la leeyahy waa kinaaya waa sarbeeb laga tilmaamayo sida uu cibaadada ugu dadaali jiray ee uu uga badin jiray intii caadada u ahayd oo markaa halkay soomaalidu yidhahdaan guntigu hebel dhiisha iskaga dhigay yani waa u xaydxaytay waa u faytay inuu arrinkaa qabto culamada badhna waxaabay ku fasiraan oo ay leeyihin shaddu lmi'sarku waxa weeyaan mubaaxaadkii oo laga tago oo waa maxay haweenku ka dheeraan jiray weeyaan dee wuu ictikaafi jiray qofka muctakifkaana waa maxay haweenka dee looma tago walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilahay yihi haweenka ha u galmoonina idinkoo maxay masaajidda ku ictikaafsan idan tobankan inuu cibaado u xidhxidho waxa kuu tilmaamaya wax wakhtiyada kale mubaax ahaa ama cibaadaba ahaa haweenaydaada xalaasha aad ku qabto inaad u tagtaa waa nooc min alcibaada ajar baa la ysaga qoraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin tobanka kan cibaadada ka fadli badan baa la rabaa inaad samayso tobanka kan cibaadada ka fadli badan leh sidaa awgeed buu xataa haweenka wuu ka hijroon jiray oo wuu ictikaafi jiray marka waxay tilmaamaysaa xataa waxyaabihii mubaaxaadka ahaa oo ictikaafku markaa waa maxay ictikaafku kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaan ibnu cumar xadiidka warinaya waa ku tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ictikaafi jiray tobanka ramadaan u dambeeya caaisha waa tale kaana nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xata tawafaahu اllah uma اctakafa aswaajuhu min bacdi xadiiska saxiixayn ku yaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ictikaafi jiray tobanka ramadaan ugu dambeeya ilaa iyo intuu ka dhimanayay bay leedahay kama tegin isaga dabadiina bay tihi haweenkiisaa ictikaafi jiray ictikaafku weer kooban haddaynu ku tilmaamno macdaneedu waxa weeyaan qofku inuu cibaado isu xidho oo mubaaxaadkii ka yimaado intuu masaajidka yimaado inuu yidhaahdo ka bixi maayo masaajidka oo muxuu ka yimi markaa waxyaabo badan oo mubaax u ahaa haweenkiisii uu ka yimi haddaad haweenkii ka timi maxaa kale la rabaa inaad ka tagto waxay culammadu yidhahdaan fuduuli اlkalaam wa fuduuli الطacaam wa fuduuli الnowm waxaasoo dhan waa inaad ka tagtaa bay idhahdeen waa inaad iska daysaa cunada badnideeda cunadu hadday kugu badato culayska kugu badanayo iyo hurdada iyo wax lamida yarayso hadalkana jooji hadalka waxaan wardi iyo cibaado ahayn ka bax dadka barh baa intay ictikaafaan sheeko uun bilaaba oo maad suuqaagaba iska joogta haddaad sheekeynayso haddaad sheeko u wadi lahayd qolaa internetkii iska soo daba rarta oo intuu ictikaafo ayuu internetka wadaa oo haddaad webajyadii iyo wixii gelayso maad magaaladaba u shir tagtid ila waa shirkiisii hunay asalku waxa weeyaan ictikaafka macnihiisuba waxa weeyaan wixii markii aad joogtay mubaaxa iska ahaabaad rabtaa inaad ka tagto oo xaggaad ku socotaa waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad tobankan habeen iyo tobankan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad qur-aan akhriyayso maraad wardinayso maraad nebiga ku salliyayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu bilbalaayiini walmalaayiin